bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey gudaha soomaalida iyo caalamka qodobada daawo doontaanna waxaa qayb ka ah waa sidee xaaladda galbeedka somalilan muxuuse yahay go'aanka madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu ka qaatay dhaqdhaqaaqyada ka jira deegaano ka tirsan galbeedka somalilan sida magaalada saylac gobolka salal iyo guud ahaanba deegaanada dhaca galbeedka somalilan waxaan kula wadaagi doonaa kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada boorame natiijada ka soo baxday iyo beesha samaroon oo miiska soo saartay go'aankeeda xilli qaar ka mida beelaha isaaq iyaguna ay soo jeediyeen in gebi ahaanba aan la aqbalin in xafladda iyo buugga xeerka ciise laga hirgeliyo gobolka salal iyo magaalada saylac waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan iyo dowladda waddanka jabuuti oo iyaduna bilowday dhaqdhaqaaqyo la yaab leh ciidamadana soo gelisay deegaano ka tirsan aagga gobolka salal haddaba maxay yihiin ciidamadan maxaase ka jira in madaxweyne ismaaciil cumar gelle waqti xaadirkan uu doonayo in si toosa u soo farageliyo arrinta xeerka iyo buugga ciise ee muranka ba'an uu ka taagnaa bilihii ugu dambeeyey xogo badan oo arrimahaasi ku saabsan oo lagaa qariyey ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale ee xasaasiga daawo doontaanna waxaa qayb ka ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa kusii dhowaanaya qabsashada deegaan istaraatiijiya oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddaba faahfaahinno iyo warbixinno waxaan kaaga hayaa duqaymo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay aagga deegaanka xawaadley iyo ciidamada gorgor oo markii ugu horreysay furimaha hore ee dagaalka lagu arkay xilli taliyaha qaybta koowaad ee ciidanka kumaandooska gorgor saahid jareer uu ku dhawaaqay in ay doonayaan gacan ku dhigitaanka deegaanka xawaadley oo ah mid istaraatiijiya al-shabaabna ay u isticmaalaan kala gudbinta maleeshiyaadka ay u kala gudbinayaan hiiraan shabeellaha dhexe iyo sidoo kale qaybo ka tirsan bariga gobolka galguduud haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan qodobada kale ee soomaalida ka baxsanaya daawo doontaanna waxaa qayb ka ah magaalada boorti suudaan shalayta waxaa gaaray madaxweynaha waddanka eritrea asiyaas afwarki halkaasina waxaa ka socda kulamo xooggan oo u dhexeeya madaxda suudaan iyo sidoo kale madaxweynaha eritrea waxyaabihii laga wada hadlay iyo eritrea oo markan u muuqatay inay si toosa u garab istaagaysa ciidamada qaranka suudaan oo saacadihii lasoo dhaafay guulo xooggan ka gaaray dagaaladii ay kula jireen kooxda dacmu sariic haddaba waxaan kula wadaagi doonaa cabdifataax alburhaani oo si weyn u ammaanay madaxweyne asiyaas afwarki oo ah madaxweynaha eritrea oo isaguba hadda ka baqdin qaba in etoobiya ay duulaan kusoo qaado haddaba xiriirka suudaan iyo sidoo kale waddanka eritrea miyuu saameyn ku yeelan karaa etoobiya waxaan kula wadaagi doonaa falanqeyno iyo sidoo kale warbixinno arrimahaasi ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyey si guud xaaladda gordofaan oo weli dagaallo adag ay ka socdaan qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaa daawo doontaan balse marka hore soo dhowaada lagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqo saaxiibada ku xihan janalka ismaaciil sheene waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo sabskraibe keliya safarkeenna adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo sabskraibe inoo saar janalka mahadsanideen waa hagaag aynu ku bilowno sidaad intiina badan ka warqabtaan xaalad cakiran ayaa waxay ka taagan tahay deegaano ka tirsan galbeedka somalilan si gaara gobolada salal ama magaalada lagu magacaabo saylac iyo guud ahaanba gobolka owdal waxaana la ysku hayaa arrimo fara badan oo ay qayb ka tahay hirgelinta buugga iyo xeerka ciise oo la doonayo in loogu xafladeeyo qaybo ka tirsan magaalada saylac iyo guud ahaanba gobolka salal beesha ciise oo inta badan degan waddanka jabuuti ayaana qorshahan waxay ka shaqaynaysay muddo fara badan waxaana arrintan xitaa isku khilaafay jabuuti iyo somalilan waxay qaadaysaa tallaabooyin kala duwan waxaana la sheegay in saacadihii ugu dambeysay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro uu soo saaray amarro cusub kaas oo gebi ahaanba ka dhana xeerka ciise in laga hirgeliyo deegaano ka tirsan galbeedka somalilan si gaara gobolka salal madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa waxaa la sheegay inuu isugu yeeray madaxda galbeedka somalilan sida gobolada salal iyo sidoo kale owdal waxaana loo dhiibay fariimo madaxweynuhu uu doonayey in mas-uuliyiintaasi u gaarsiiyo iyo dadka shacabka ah madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu sheegay ama si cad ugu sheegay mas-uuliyiintan in loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada guud ee deegaanada dhaca galbeedka somalilan si taasi ay u dhacdana waxaa gebi ahaanba madaxweynuhu u diiday in xeerka iyo buugga ciise loogu xafladeeyo magaalada lagu magacaabo saylac iyo guud ahaanba deegaanada dhaca galbeedka somalilan madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu sheegay in xeerka ciise iyo buugguba uusan ahayn
quraan soo degay ama kutaab, sidaas daraaddeed loo baahan yahay wax kasta oo wax u dhimaya midnimada iyo wadajirka shacabka reer Somaliland marnaba aanan la ogolaan doonin. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu amar siiyey dhammaan ballaamaha amniga sida ciidamada booliiska, sirdoonka leexsan iyo militarigii dhowaan la geeyey magaalada Saylac iyo deegaanada galbeedka Somaliland ku yaala oo Lowyacaddo ay ka mid tahay, waxaana ciidamadan lagu amray inay qaadi karaan tallaabo sharciga waafaqsan cid kasta oo lagu arka calanka Jabuuti iyo wax ku saabsan buugga iyo xeerka ciise. dowladda Jabuuti ayaa iyadu weli waxay wadaa dhaqdhaqaaqyo xooggan, waxaana markii ugu horreysay la xaqiijiyey in Saylac iyo deegaano hoos yimaada lagu arkay ciidamo hubaysan kuwaasi oo ka soo jeeda beesha ciise, waxayna sitaan calanka Soomaaliya iyo calanka Jabuuti iyo sidoo kale buugaagta xeerka ciise oo la doonayo in loogu xafladeeyo gudaha Somaliland si gaar ah deegaanada galbeedka. su'aalaha dadka isweydiinayaan waxaa qayb ka ah sidee ayay Somaliland waqti xaadirkan u wajihi doontaa beesha ciise maadaama dowladda Jabuuti ay si weyn u taageerayso beeshuna dhowaan kulamo ay ku qabsatay magaalada Cali Sabiix ama gobolka Cali Sabiix waxay ku sheegeen in ay qaab awooda ku hirgelin doonaan Somalilandna cidna aysan ka xigin. sidoo kale arrintan waxaa soo farageliyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha Samaroon oo markii hore Ismaaciil Cumar Gelle uu doonayey in isaga ay la saftaan xeerka ciisena si wadajir loogu hirgeliyo deegaanada galbeedka, laakiin arrintaasi waa ay dhici weysay oo beesha Samaroon waxay la safatay Somaliland iyo dowladooda waxayna ka soo horjeesteen xeerka ciise. Somaliland ayaa wafdi isugu jira wasiirka amniga gudaha, wasiirka arrimaha dibadda oo labaduba ka soo jeeda galbeedka waxay u soo direen magaalada Boorame. kulamo ayaa maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka socday, waxaana go'aan lagu gaaray in marnaba aan la hirgelin xeerkan, iyadoo dowladdu ay doonaysay in beelaha Samaroon iyo ciise labadooda ay ka wada hadlaan arrimo ku saabsan xeerkan iyo qaabka loogu hirgelinayo deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland. laakiin waxaa la xaqiijiyey in beesha Samaroon ay yidhaahdeen Somaliland innaga ayaaba milkiile ka ah, wixii aan annaga doonayna ayaana soconaya. tani oo ka dhigan in beesha Samaroon ay hub ka qaadatay, sidoo kalena ay doonayso in gebi ahaanba xeerka ciise aan laga hirgelin deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland si gaara gobolka Salal. markii ugu horreysay waxaa magaalada Boorame sidoo kale lagu soo bandhigay ciidamo iyo maleeshiyaad badan oo u dhashay beesha Samaroon, kuwaasi oo sheegay inay ka hortegayaan haddii la isku dayo in xeerkan laga hirgeliyo qaybo ka tirsan magaalada Saylac iyo guud ahaanba galbeedka Somaliland. tani waxay muujinaysaa ayaa la leeyahay in Somaliland iyadu naftirkeeda haatan ay si hoose kaga shaqaynayso sidii qodobkan labadan qabaa'il ee ciise iyo Samaroon ay isugu qabsan lahaayeen, waana qorshe u shaqeeyey xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro, halka waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle ay ku fashilmeen in beesha Samaroon ay maraan dhinaca beesha ciise, sidoo kalena Somaliland sidaas looga soo horjeesto. ugu dambeynna jabhad ayaa la doonayay Awdal State la yiraahdo in halkaasi laga asaaso, laakiin Cabdiraxmaan Ciro iyo dowladdiisa waxay u muuqdaan in arrimahaasi oo idil ay ka guulaysteen, sidoo kalena ay ka dabaasheen dhinacyadii arrintan ka shaqaynaya sida Soomaaliya, Jabuuti iyo Qatar iyo Turkiga oo la aaminsan yahay in ay si weyn kaga shaqaynayeen arrinta xeerka ciise lana doonayo in lagu soo gabado kadibna lagu burburiyo deegaanada galbeedka. ugu dambeynna maamulkii loo dhisay waqooyi bari oo kale ayaa la doonayo gobolada Salal iyo Awdal in magaca Awdal State laga dhigo, beesha Samaroon madaxweyne la siiyo, madaxweyne ku-xigeenna la siiyo beesha ciise, waana qorshaha uu weli ku taamayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle. sidoo kale qaar ka mid odayaasha dhaqanka beesha dhexe ee Somaliland Isaaq ayaa arrintan ka hadlay, waxayna yidhaahdeen buugga iyo xeerka ciise marnaba macquul ma ahan in laga hirgeliyo deegaanada galbeedka, sidaas daraaddeed beesha ciise waa inay arrintaasi gebi ahaanba duuduub isaga ilaabaan oo ay ka waantoobaan. waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid odayaasha beelaha Garxajis iyo Habar Jeclo iyo xitaa beesha Habar Awal, dhammaantoodna kulamo ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxay si cad ugu dhaliileen beesha ciise iyo Ismaaciil Cumar Gelle, iyagoo sheegay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle uu ka shaqaynayo kala goynta Somaliland iyo sidii loo burburin lahaa isagoo danihiisa shakhsiga ah iyo danaha waddanka Jabuuti eeganaya. waxayna sidoo kale ku hanjabeen in Jabuuti ay tahay xaafad yar oo shisheeyuhu ilaaliyo, Somaliland ay awooddo inay qaab awoodaba kula wareegto Jabuuti oo idil haddii aysan faraha kala bixin arrimaha waqti xaadirkan Ismaaciil Cumar Gelle uu ku guda jiro oo si weyn ay dhinacyadan u dhaliilisan yihiin. qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa. dhinaca kale,
maalintii saddexaad oo xiriir ah gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan iyo guluf dagaal oo ay wadaan militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dadka deegaanka. Ujeedada ugu weyn waxay tahay sidii argagixisada al-shabaab looga saari lahaa deegaanka Xawaadley oo ay qabsadeen horaantii sanadkan aynu ku guda jirno. Xawaadley waa deegaan istiraatiiji al-shabaab ayaana inta badan u isticmaala kala gudbinta maleeshiyaadka ay doonayaan inay u kala daabulaan gobolada shabeellaha dhexe, shabeellada hoose iyo hiiraan. Ciidamada ayaana kol hore halkaas isaga soo baxay kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay gudaha deegaanka Xawaadley. Taliska militariga Soomaaliya saraakiil u hadashay waxay sheegeen in saacadihii la soo dhaafay deegaanka Xawaadley ilaa iyo xalayto iyo haatanba ay ka socdaan duqeymo xooggan oo lagu beegsaday goobaha hawdka ah iyo fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin bannaanka iyo gudaha deegaankan. waxaana jira khasaarooyin xooggan oo gaaray argixisada al-shabaab. sidoo kale markii ugu horreysay waxaa la arkay askartii ugu badnayd oo ka tirsan ciidanka kumaandooska gorgor qaybta koowaad, waxaana ciidamadan la sheegay in lagu xoojinayo furimaha hore ee dagaalka maadaama taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay doonayaan in gacanta lagu dhigo deegaankan oo loo arkay in uu leeyahay muhiimad gooni ah. al-shabaab iyagu laftirkooda waxay dareemayaan culays xooggan, waxaana la xaqiijiyey in dadka shacabka ay ku qasbayaan in aysan ka barakici karin deegaanka Xawaadley, iyaga oo sidoo kale bilaabay in gaadiidkooda dagaalka iyo waxyaabaha kale ee agabyada muhiimka ay ka jiitaan gudaha deegaanka Xawaadley. si lamid ah waxaa la xaqiijiyey in inta badan dagaalamayaasha al-shabaab 50% ay si tartiib uga baxeen magaalada. tani oo ka dhigan in kooxdu ay dareentay culayska xooggan ee waqti xaadirkan ay soo saareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka. taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwaa Yuusuf Raage ayaa dhawaan warbaahinta caalamiga waxa uu sheegay inay isku diyaarinayaan wejiga saddexaad ee howlgalka loogu magac daray duufaanta aamusan, kaas oo la doonayo in argixisada looga saaro magaalooyin muhiim ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. qorshahana waxa uu yahay in howlgalkan si wadajir uga bilowdo deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug, bariga gobolka Galgaduud, qaybo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo haatan howlgalka duufaanta aamusan wejigiisa labaad uu si weyn kaga socdo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose, iyadoo ciidamada ay ka gaareen guulo wax ku ool ah. wixii warar ay kusoo kordha arrimaha deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ee gulufka laga dareemayo isla halkan ayaad ka daawan doontaa. ugu dambeynna qodobada caalamiga ayaynu gelaynaa. xaaladda waddanka Suudaan ayaa weli cakiran, waxaana shalayto magaalada Boorto Suudaan oo ay fadhiyaan ciidamada militariga uu hogaamiyey Cabdifataax al-Burhaani gaaray madaxweynaha waddanka Eritrea Asiyaas Afwerki oo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey. Eritrea iyo sidoo kale waddanka Suudaan waxaa u bilowday xiriir sida ay wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan ama ay qorayaan warbaahinta Suudaan iyo Eritrea. madaxweyne Asiyaas Afwerki ayaana si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Boorto Suudaan. boqolaal qof oo shacab ayaa ka hortegay. sidoo kale hogaamiyaha ku-meel gaarka ah ee dalka Suudaan ee militariga haysta Cabdifataax al-Burhaani ayaa halkaasi ku soo dhaweeyey, iyada oo la sheegay in dhinacyadu ay leeyihiin kulamo kala duwan xalay ilaa iyo saakana. kulamadu waa kuwa isdaba joog ah. dowladda Eritrea iyadu waxay ka cabsi qabtaa in uu soo weeraro Dr. Abiy Ahmed. sidaas daraaddeed waxaa leeyahay Eritrea waxay doonaysaa in ay xoojiso xiriirka ay la leedahay dowladda Suudaan, iyadoo ka taageeraysa dhinacyo kala duwan oo ay qayb ka tahay la dagaalanka kooxda RSF ee taageerada ka helaysa dalka isu tagga Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaa la leeyahay dowladda Suudaan ayaa waxay u muuqataa in hadda ay helayso taageero caalami ah oo ay ka helayso qaar ka mid ah wadamada islaamka iyo kuwa beesha caalamka. dowladaha Turkiga, Masar iyo Qatar ayaa ilaa iyo haatan waxay u muuqdaan kuwa si weyn u taageeraya ciidamada militariga Suudaan oo guulo wax ku ool soo hooyay saacadihii la soo dhaafay kadib dagaalo ka dhacay qaybo ka tirsan galbeedka Suudaan sida magaalada Al-Fashir iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka Kordofaan. waxaana ciidamada dacmu sariic lagu gubay gaadiid dagaal oo taangiyo u badan, kuwaasi oo la sheegay inay ka heleen dhinaca iyo Imaaraadka Carabta. Cabdifataax al-Burhaani ayaa sidoo kale waxa uu gudoomay saanad iyo hub ciidan oo saacadihii la soo dhaafay laga soo raray waddanka Turkiga, kuwaasi oo maraakiibtii sida ay ku soo xirteen magaalada Boorto Suudaan. tani oo ka dhigan ayaa la leeyahay in ciidamada Suudaan ay helayaan taageero kala duwan, kuwaasi oo kaga imaanaya
wadamo waqti xaadirkan si weyn u daneynaya sidii looga hortegi lahaa kooxda caloosha shaqaystayaasha ah ee dacmu sariic Eritrea iyo Isaias Afwerkina wadamadaasi ayay ku soo biirayaan. Eritrea waxaa lagu ammaanaa inay leeyihiin ciidamada ugu adag marka la joogo geeska Afrika, waxaana la xusuustaa sida ay cashar ugu dhigeen dagaalkii Ethiopia Eritrea ee 1991 iyo wixii ka dambeeyey dhowr jeer labadaasi wadan dhex maray. haatanna waxaa laga cabsi qabaa in Dr. Abiy Ahmed uu doonayo inuu awood kula wareego dekedda Casab, laakiin Eritrea waxay leedahay waana u diyaarsannahay, iyadoo oo xiriirka u bilaabmaya Eritrea iyo Suudaan uu imaanayo xilli weli aan la xallin khilaafkii iyo murankii ka dhashay biyo xireenka Abay oo Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia murankooda uu ahaa mid taagan. laakiin hadda Suudaan iyadii ayay xaaladdu ku xun tahay oo waxay u baahan tahay garab istaag. Eritreana waxaa leeyahay Suudaan wax badan ayay kusoo kordhin kartaa. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkeena ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka. ilaa dhamaadka haddii aad soo gaarto waxaan ku xusuusinayaa inaad channelka subscribe inoo saarto, qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran. waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe. keliya safarkeena adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo subscribe inoo saar channelka. mahadsanidin.